xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay guddiga u saartay sharciga jinsiga kaas oo ay dhawaan ay ka hadleen culimada diinka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Cabdiraxiin Xuseen Caylaabe ayaa warbixintaasi Muqdisho nooga soo diray. shirka golaha wasiirada oo maanta ka duwanaa shirarkii hore ayaa waxaa shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali. shirka golaha wasiirada ayaa maanta waxaa lagu casuumay hay'adda culimada Soomaaliyeed gudoomiyahooda Sheekh Bashiir Axmed Salaad iyo qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed iyo waxgarad. kulanka ayaa looga dooday qodobo badan oo ku jira sharciga jinsiga oo ay ansixiyeen xukuumadda Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo shirka markii uu soo dhamaaday warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dhammaan qodobada tuhunka keenay la bedelayo isla markaana guddi loo saaray arintaasi. sideedana marka la saxay waxa lagu daraa paragraph cadeynaya in hadii waxaas la saxay conventionka ama treaties-ka ay ka soo jeedaan diinta islaamka ama ay ka soo jeedaan dastuurka iyo shuruucda dalka in dowladda Soomaaliyeed aysan marna u gacan xirnaanaynin kuna khasbanayn shuruucdaas. marka sidoo process jira marna ma dhicin qaladaadka noocaas marna dhacayaan hadda waan wax xaqiijinay culimada waan isla afgaranay in qodobadii tuunka keenay siiqadooda lagu noqdo hadii la yiraahdo siiqo sax ah oo dadka oo dhan oo cuntama la keeno waan rajaynaynaa insha Allah hadda xaqadaba in xoojino oo soo sheego iyaga oo santiin ummadana sidii loogu baaqay sidoo fasalaad keeni karta yani xasaasiyad iyo ama maanta dalka kan oo baan xasaasiyad dambeeto waxa laga keenay meel fog oo ogtihiin. Sheekh Bashiir Axmed Salaad gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa isna sheegay in la aqbalay qodobadii dooda ay ka keeneen hay'adda culimada Soomaaliyeed isagoona sheegay in guddiga loo saaray arrintaani ay kala doodi doonaan qodobada aan waafaqsanayn shariicada islaamka. waa maqlayseen waxa weeye anagu mulaxadooyinkii iyo arrimihii aan soo jeedinay oo aan aan niri xabaan ka qabnaa guddi fiiriya arrimahaas oo dib u eega ayaa loo wada saaray insha Allah taala. guddigaas marka wixii anaga mulaxado lahayn iyo aragtideeni baan qordhigaynaa ayaguna marka wixii ay ku biirin kara ku biirinayaan. marka anagu mowqifkeeni ahaa mulaxadooyinka aan ka qabno waana ka aqbalay in guddi loo saaro runtii sharafay noo tahay. waxda anagu tan gaaran ma aan lahayn cidna ma aan gaalaysiin cidna diigaduna aan banaysan cidna iskama aan horkeenin mulaxadooyin baan muujinay oo tashi ayaan aan muujinay waana waxa yeelay marka hada wax isbedelay oo dhibaato ah waan marka hore aan aaminsanayn oo hadda aaminsanayn ma jiraan inuu dawladda waan qaan dawladda muslima waa shacab muslima laakiin dadku haday kala maqan yihiin hadallo iyo waxyaalahan sax ahayn ba dhexdooda laga faa'iideysan karaa. marka hadda isku nimid waana afgaranay. Cabdiraxiin Xuseen Xasan Cabdiraxiin Caylaabe Somali Cable magaalada Muqdisho.